jasiiradda ugu weyn ee qaaradda Afrika, Madagascar, marunbaa in dhulkan ay Soomaali ka talin jireen. Ma ogtahay in magacii hore ee loo yaqaanay uu yahay Muqdisho? Jasiiraddan cagaaran ee Madagascar oo caan ku ah dalxiiska iyo damaashaadka waxay dhacdaa badweynta Hindiya. Sheekadan ayaan ku eegi doonaa jasiiraddan iyo taariikhda aan la qorin ee laga qariyay. Muuqaalkana sii faafi. Madagascar waa dal ka mid ah 54 dal ee Afrika. Waddan caan ku ah dalxiiska iyo xeebaha in ka badan dalalka kale ee Afrika. Jasiiradda Madagascar waa jasiiradda ugu weyn jasiiradaha ku yaala qaaradda Madow, halka duniduna ay kaga jirto kaalinta afraad ee jasiiradaha ugu weyn dunida. Waxaa ku nool dad gaaraya 31 milyan oo qof, kuwaasi oo asalkooda ka soo jeeda qaaradaha Asia iyo Afrika. Dadka u dhashay jasiiraddan waa dad aan madow ahayn, isla markaana aan ahayn caddaan. Muuqaal ahaan waxay u egyihiin Soomaalida, waxayna leeyihiin kalarka maariinka ah. Taariikh ahaan, Madagascar waxay ahayd qayb ka mid ah qaaradda Madow ee Afrika, ka hor inta aysan noqon jasiirad ay ku hareeraysan yihiin biyaha badda ee Indian Ocean, waxayna ku dhinac taallay ama ay xuduud la wadaagtay bariga Afrika qariirad ahaan. Sida ay qorayaan dhigaalada taariikheed, jasiiraddan waxaa loo yaqaanay magaca Muqdisho agagaarkii qarnigii 10aad ilaa iyo 13aad. Doodo badan ayaa tilmaamaya in safraagii reer Talyaani Marco Polo uu ahaa shakhsigii jasiiradda Madagascar u bixiyay magaca Muqdisho, kadib markii isaga oo ku sugan jasiiradda uu ugu yeeray magaca Magadaso oo la macnaha Muqdisho si qalad ah oo uusan ugu talagelin, sidaas ayuuna ugu baxay magaca. Laakiin qoraal lagu magacaabo Negro ayaa qaba in wax la sameeyay ay tahay sheegashada ah in si qalad ah uu u baxay magacaasi, waxa uuna ku doodayaa in uu magacaasi yahay kan loo yaqaanay jasiiradda, isaga oo soo bandhigay cadeymo ama historical documents. Waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah in loo nisbeeyo in jasiiraddan Madagascar ay maamuli jireen boqortooyooyinkii Soomaaliya soo maray. Tani oo ah xog cusub oo aan helay intii aan ku guda jiray baarista sheekadan. Qoraaga reer Jarmal Jerome Magister buug uu ka qoray Madagascar ayaa noqday dhaxal taariikheed qeexaya hoggaankii hore ee jasiiraddan. Waxa uu ku xusay buuggiisa mid ka mid ah boqortooyooyinkii soo maray Soomaaliya in ay ka degday jasiiradda Madagascar iyada oo ay la socdaan kumanaan ciidan ah, isla markaana ay ku qasbeen in ay u hoggaansamaan amarada boqortooyada Muqdisho ka timid, sida uu ku qoray buuggiisa qoraagaasi reer Jarmal. Arrintan ayaana caddeyn u ah in jasiiraddan ay maamuli jireen Soomaali qarniyo fog. Waa wax aad u adag in uu aamino qof Soomaali ah, maxaa yeelay waa wacaal uusan weligii maqlin, sabab kasta oo ay ahaataba. Marka aan ka hadleyno taariikhda Soomaaliya, waxaa aad u adag in aad hesho taariikh badan oo qadiim ah, maxaa yeelay ma jirto cid mas'uuliyad iska saartay keedinta dhaxalkaasi. Hase yeeshee, dhinaca kale oo ay taariikhda qusayso ayaa ah waddada keliya ee lagu helo wax ku saabsan Soomaaliya. Jasiiraddan Madagascar oo ah hadda dal ka mid ah dowladaha qaaradda Afrika waxay leedahay dhul qurux badan oo dalxiiska iyo baashaalka ku wacan, kaasoo ka mid ah goobaha ay dadka dunidu jeclaystaan in ay u dalxiis tagaan maalin uun. Bal adigu aragtidaada hoos nagula wadaag, muuqaalkana laag saar oo sii share gare